sheekay marka please waxa ogaatiin 8 markii la gaaro meeshan waa ka tagaynaa anina 5 saac drive ayaan u socdaa xaafadeyda marka fadlan soo kooba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحيح كيسبو ماسيين علي مرة وصحيح كي مرة سبب الصور الرعاية آليات من منطقة وما نغيا حلقة ومانتي ومصوح سوستي شركة نسوق يسويري أنا عندنا فكرتي ذيك هذا والفكرة هذا أنا خاصة عندنا فكرتي ذيك هذا الدستور كان حرام ودي ذي تاني مركان أركي ونبرسا الهبين لقاش الرحلة هبين كاسا بنعمل لبس وفتوت فكرة دي وحواية تسطور كان أنا ما أقولي على صاحب قواية يقرأ لها هاو مركان تسطور كان ما لقى هذا كان أنا كان في هذا انتيار ترى ماشي في قضاء في عن ساعة وجودي أساس الدنيا قضاء محكمة ما بكرة بحسنا من ذلك كانت التصوير كي خرج وادي يعني ما كل بعدين كي لحد يكون وادي حبان كبدي وتطبنا معنا على بجوي لك ماشي ما كاسم جود الوطن كي لحنا يكون كي لعوديني واديدي سوماليا سيديد قوميات صدح واديدي شن واو بلاتي سو ماشي عزبيدا لو كلا بحاي وانا لقاه وانا راعني marka waa inkastoo dastuurkaas ugu shirtay ruuxiisa oo san xalaalahay oo weyn loo baxshay magaciisa oo dhanba magac halkaas oo laga raacay waa shubtay ku shubasha dawladii markaa jirtay baa ku shubtay marka hal dawladda inay xalaal ma dhashaan dastuurkii lagu shubtay isagoo lagu burburiyo wadankaysa asiga wixii faa'iido ma lahayn dastuur xaq ah oo ummadda Soomaaliyeed ay qortay isku timaadaan loo baahan yahay kana dastuur ma aha oo mahiga iyo wax la mid raaga adiga takaala waa goori annaga waxaan rabnaa dastuurka marka laga hadlayo war madaxweynaha shamsa waxay leeyahay diintii wuxuu dhigtay maya diinta xoo ma dhigin barlamaanka hal laga dhigo 123 diintii wuxuu dhigtay maya sukade diinta xamaada wixii diinta ka soo horjeeda ka hab wax walba hadina sidaas diinta annaga waa xeerkii la isku dhaqay 24 saac tuuga la xiriirka ka bacda maxkamadda la geeyay diinta ku dhigtay waxyaalaha hadda fiir dastuurka lagu sheegay waa ummadda bulshada marka meesha taga waxay ku dhaqmayeen marka aniga waa soo gaabinaya hadalka saaxiibkayda torxan waa iga taagay marka anigu dastuurkaas fikradeyda caali ku dar baadiyay sheekay yaa maxsiya waxa ugu beynaa maaragtay maxamed sheekh jaamac afreeyna aan kala dadaalka waxayna federaaliyan bilaabeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدأت الصوماليين وماشي صوفا يستي وتستور كودا إيو طبعا كودا إيو نرشوا صوفا يستي هيا سلام هيا وحالا إلهي ورجينا هيا وحايا كمان يسيد وراسنا ويقول ربان بإلهي مسهل بدل لما مرن كان حتى التستور كه وبطي nimanka loo keenay waa niman Soomaali ah mar umaleynaayo kuwa ay u soo dejiyay maamulkooda inay ku kooban tahay dad kale oo Soomaali ah oo farqado bay ka timid waana maqlaynay waayahan baa dastuurkaan iyo wixii la sheegayay oo laha Soomaaliya dastuur loo soo sameeyay cusub oo niyu law sidaa daraaddeed ayagana waxaa lagu soo tariyay inay Soomaalida u geeyaan laba arrimood oo meesha ka yeeraysay
waxyaalo qabiil ah iyo waxyaalo dabeecad ah ayaa Soomaaliya dhibaato u keenay laakiin wali ma aan maqal dastuur Soomaaliya hore u samaysatay oo iyadu ay lahayd dastuurkaas dhibaato u keenay ma aan maqal marka dastuuradii ay ku soo rabnay jiray waxaan u malaynayaa waa la fiirin karaa haddii wax loo baahan yahay oo dastuur ay jiraan waa lagu darsan karaa haddii wax dheeraad ah oo aan ku fiicnayn ay ku jiraan waa laga bedeli karaa imamati waa la samayn karaa baa lagu qabaa midda labaad waxaan qabaa dastuurkaan markii la samaynayay inaan Soomaalida maskax ahaan iyo tala ahaan inaan la deebsin ee aad moodaysay si degdeg ah ama dad degdejinaya inay samaynayeen ma aqaan dambe ay u gaaray kalaayeen ma aqaan ma dhibaatada Soomaaliya oo haysataa dhibtay oo waxay lahaayeen dastuur Soomaaliya ku jirto aynu u samayno laakiin waxa cad inaan si buuxda Soomaali looga talagelin ama gobol ha ahaato ama aqoonyahan ha ahaato ama ha ahaato nin waaye jireen ah oo Soomaali ah oo dhaqanka Soomaalida iyo dastuurkii hore u yaqaanay ha ahaato ma filayo in aad looga booraan degay ama aad khibrad ahaan looga tashaday markii dastuurka la sameeyay anigu maskax ahaantayda waxaan haystaa dastuur la dedejiyay midda la leeyahay dad kale dastuurkood baa lagu maamulayaa oo photocopy lagu soo sameeyay ama la soo guuriyay waxa la qofka haddii jiradiisu badato cilmadiisa badata waxay qorshe baad yeelanaysaa oo mid walba oranay dadkan wax lagu biskeeyay anaa garanay ama wax loogu taliyay anaa garanay taa iyada ah inaga ayaa isu keenay arrin kale oo lahayd Soomaaliis sidee dadka loo Soomaaliyeeyaa waxaan ugu oran karaa waxa la yiraahdaa diinta Islaamka lagu murmo waxa loo noqdaa qaala Allah iyo qaala Rasuulullah ilaahay wuxuu yiri iyo rasuulkiisa wuxuu yiri yaa dib loogu noqdaa si sax ah loo helo taa waxaa leeyahay Soomaaliya markii burburku ku dhacay oo 91 ninkii aabihii Soomaali ahaa iyo awowgiis baa Soomaali nin hadda la Soomaaliyeeyahay yaa laga dhigay waddanka Ameerika Soomaaliya mar loo karto waa mandaqad yar oo Soomaaliya Ameerika oo kale mana u karto haddii lagu soo furo Kenya iyo Ethiopia iyo adduun kale iyo qaaradaha adduunka oo la yiraahdo Soomaaliyeed Soomaaliya lama deeqo Soomaaliya waxay Soomaali ku tahay 91 ninkii aadi ah ninka laga dhigo maasayay Abu Karbaale hal arin ayaan clarification ku sameynaya midda ah dastuurkan iyo soo dedejiyay kale dastuurkan dadna waxay leeyihiin inta sana la soo waday oo lacag xaqaafa loo maray qaar waxay leeyihiin war dastuurkan waa la soo dedejiyay marka Soomaaliya raayiga meel kale jira arkayka magacayga waxaa la yidhahdaa Abu Karbaale Xusmaan وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنت بحضر كفتر عن ضدك ماشي يروح على الاستقامة هطالع بري على ساحة والله تعالى استقامة علي وجبان دي الأرض. وحنا بحنا وصل استاي كلمة دي القطاع هاي. ولا أربعة ما كان ده يستقبل يقول البلوي كرواجين. كنتي باهي الواقع الدستور. سيدنا محلي هذا إن حل هذه مركي البرلمان الصومالي ما هي constitution وحنو أركائن هاي civil war ولا نبي لك reconciliation أو ربطة وذلك reconciliation صح على سماه مركو حسوا يدينا ضاحية كانتي إن الدجيو الدستور كان حويه الله بعد ما هو أسبيرسيتي أركتي دي أنا وعمده dad Soomaali ah oo dawladihii hore ku jiray dareemay xoogaa in la dulmiyo ama la gacan bidixeeyay oo u arko dastuur cusub kuna dhegan arrinta federalism iyo dawladaha dariska ah oo runtii horyaalka Ethiopia
watay qorshe la yiraahdo building block oo Soomaaliya loo qeybiyo gobolo yaryar isbiirsaday marka Ethiopia danta ay leedahay iyo dadka walaalaha Soomaalida oo dareensan arrinta federalism waa kala gedisan tahay waxaan aaminsanahay haddii ay jiraan dad runtii waaba jiraan dad qabo in dowladihii hore oo jiray la gacan bidixeeyey waxoogaa dhibaato ku arkay laakiin waxyaabaha ay dooranayaan weydiisanayaan waxaa ugu muhiimsan gobolkeega yaan qof loo soo magacaabin degmadeeda yaan qof loo soo magacaabin taasna waxaan dhihi karaa uma baahna constitution cusub waxay u baahan tahay ama dastuurka hadda jiro kumeelgaarka ah in amendment lagu sameeyo ama constitutionkii hore 1960 la amenda gareeyo oo la develop gareeyo aan la scratch gareeyo la tuurin constitutionkii aan haysan marka waxaan isleeyahay anaga naftarkeena aan fahamno baahida keenaysa meesha ka imaanayso marka waa inaan adres garaynaa haddii injustice ay jirtay aanay helnaa xal si injustice-kaas looga gudbo dastuur aan u qalmin ummadda Soomaalida loo waana mahadsantiin thank you very much abuukar ayaa markii loo arrintii introduction ku sameeyay federalism ayaa ka hadlayna qodobka ahaa marka qodobkaas waxyar haddaan introduction idinka siiyo federalism waxay ku heshiyeen nimankii TFG-dii Megati nimankii markaas liidarada ahaa marka waxyaabaha charterka iyo hadda charter dastuurka loo qoro waxaa ka mid ah laba gobol iyo wixii ka badan ayaa waxay noqon karaan dowlad goboleed marka markaan ka hadlayno dastuurkan federalism aan ka hadlayno laba arrin inaan tixgelin waayo reality ah inay maaragtay Somaliland ay jirto inay Puntland ay jirto maxaa la galmudug oo hadda iyada shuruudihii aysan waafajinin weli inna meesha ay ku jirto marka fadlan adoo qeexaya reality waddanka markaas ka jiro ra'yigiina si xor ah u dhiibta waxaan ugu horreysiinayaa maxamed دمانتي واحد سلامي مقعي واحد محمد حاشم طبعا قابياش كان مكانين وقماسيه حتى قوة كان بينه ولي هلقة وقوة كعلي مكان تجابي وأنا واحد من كأخي قوة كأمة الصومالية عاب عيب حرله دحجوجين دونه عام ناس اللي قال marka qodobka asaga nimanka waxaan soo qoray waa inay isfahmaan ummadda Soomaaliyeed ku halkaan fadhiyo iyo kuwa video iyo cadalaha daawanayo qodobkan qodobada Soomaaliya hadda loo soo wado midka ugu khatarta badan waa qodobkan la bixiyay the structure of Somalia oo la yiraahdo federal marka waxaan ku bilaabay su'aal aan leeyahay wax walba qofku uu sameeyo qofka uga dhigaa يا لغة دي النظام كان سومالي لو سميو فدرال لغصري سيزوي لغة دي عد اللغة دي ومضوا عنو شرحها فإيدي اختاريز ومضوا عنو شرحها وحاني عقلي إله وأن كديدنا هي النظام كان فدرال لو صبوا كو حدان سومالي عن أقيم من الأحان وقوة تكسس له واحد خير أما واحد لا haddii la dhaho xawqa in loo sameeyo saddex dowladood oo isdaba yaala wax suurtagelaya ma waxa la qaban karaa gobolkan waxaan dhex deganahay haddii Columbus maamulka ka jira oo isteedka u bogwaayo isteedka xaq wuxuu u leeyahay la home uu muruuc tahay legislative ka farsanayo kuwa socdinta gobolka opera kusminka sitiga waxa la lagu dhacay wala gacay kaasha ma naqsbal keen kara qofkii rabo loo baaro home rule oo ay ka mid tahay Columbus ku home rule oo ay home rule state Soomaaliya marka saddex dowlad loo sameeyo oo dowlad ay ka tahay hawl qabad ma soconayso waa qodobka